السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada ku xiran bogga Tamasak Channel ku soo dhawaada barnaamij kale oo aan uga hadli doono dhagaxa samada ka soo socda cabsida uu dunida ku abuuray maxaa ka run ah. Dad badan ayaa cabsi ka muujiyay iyaga oo durba khalkhal ku riday aadamaha halka dadka qaarkoodna ayba u maleeyeen dhammaadkii dunida iyo qiyaamihii. Balse dhagaxan ayaa dhulka u soo jirsanaya 6.3 milyan oo kiiloomitir, taasi oo xitaa 16 jeer ka fog masaafada uu dayaxu dhulka u jiro. Hay'adda Culuumta Samada ee NASA ayaa dhagxaantan oo tixraacoodu yahay 1998 oo R2 soo saartay sanadkii 1998 iyada oo u aqoonsatay khatar aad u weyn. Dhagxaantan ayaa masaafo ahaan marmarka qaar u soo durka xagga dhulka iyaga oo la eg masaafo dhan 2 ilaa 4 kiiloomitir. Macnaheeduna ay tahay in haddii maalin uun Ilaahay dhulka u soo gaarsiiyo ay waxyeelo fara badan gaarsiin doonaan qaybo fara badan oo dhulka ka mid ah. Haddaba dhagaxani wuxuu mar labaad ag mari doonaa dhulka bisha May 18keeda 2031 isaga oo ka fog masaafada uu maanta u jiro dhulka. Wuxuu mar kale soo noqon doonaa waa sida ay culimadu saadiyeen oo darseen sanadka 2048 iyo sanadka 2062 isaga oo markaana aad uga sii fogaan doona masaafada uu maanta u jiro, balse wuxuu doc mari doonaa xaqiiqadu waxay tahay inuu doc mari doono dhulka isaga oo aad uga fog masaafo ahaan. NASA iyo bahwadaagteeda ayaa isku dayaya inay ogaadaan dhagxaanta khatarta leh ee dhulka ku soo dhawaanaya. Waxayna mar horeba ogaadeen 3 meelood oo meel 25,000 oo dhagax kuwaas oo khatar loo arko. 25,000 oo dhagax. Hay'adda NASA waxay ogaatay 3 meelood oo meel. Mareykanka iyo dowladaha kale ee awoodda leh ayaa muwaadiniintooda qaar ka mid ah ku andacoonayaan isla markaana ku doodayaan in dowladoodu ay awood u leedahay inay dhagaxaas burburiso waa haddii uu samada u soo dhawaado. Balse xaqiiqada ayaa waxay tahay in aan waxba laga qaban karin dhagaxan oo aan xitaa doc loo leexin karin iska daa inay burburiyaan. Maxaa yeelay dhagaxan ayaa awood u leh ku habsashada masaafo dhan 4 kiiloomitir. Dadka reer Yurub iyo Mareykanka ayaa aad uga walwalsan waxay leeyihiin oo ku andacoonayaan qarinayso si wax u jiraan isla markaana uu dhagaxu dhulka soo gaari doono, balse ay dowladaha iyo hay'adaha space-ku arrintaasi qarinayaan. Sidoo kale lama oga in dhagaxani uu side effects ama uu saameyn si uu ugu yeelan doono dunida sida waxyeelooyin ay ka mid tahay masiibooyin, cudurro iyo masiibooyin kaleeto. Inkastoo cudurka COVID-19 ama coronavirus 19 aan la xiriirin karin isla markaana ay khubaradu sheegeen in cudurkan aan si nabad loola xiriirin karin dhagaxan samada ka soo dhacaya ee asteroid-ka ah. Waxaa sidoo kale ay dood weyni ka taagan tahay in dhagaxani uu dhibaato gaarsiin karo meeraha Mars oo runtii ah meero aad u weyn isla markaana ka mid ah meerayaasha aadka u soo shabaha dhulka ayna dad fara badani ama hay'ad fara badani ay waqti iyo maalba ku bixinayaan sidii ay marun u gaari lahaayeen halkaana ay nolol uga suurtagelin lahaayeen. Dhagaxan ayaa dhulkeena u muuqan doona 29ka bisha Abriil gaar ahaan saacadu marka ay tahay 5:56 AM waa saacada bariga waa saacada xilliga dhexe wadamada dhexe. Haddii aad telescope ama dhaweyso haysatid gibina haysato waxaad nasiib u yeelan doontaa inaad dhagaxan aragto adiga oo gurigaaga jooga adigoo meelna aadin. Waxaad nasiib u yeelan doontaa inaad dhagaxan si toos ah ula socotid adiga oo gurigaaga jooga. Sidoo kale haddii aad ku nooshahay waddan aan ahayn Mareykanka, Canada, Mexico iyo wadamada dhexe, waxaad saacada u muuqan doono dalka aad joogto aad ka ogaan doontaa internetka. Haddii aadan haysan telescope waxaad dhagaxan dhaqdhaqaaqiisa kala socon doontaa online-ka adiga oo booqan doona barta ama shabakadda internetka ee hay'adda Virtual Telescope Project ee Rome magaalada Rome 28 Abriil sanadka 2020 halkaas oo aad si online ula socon doonto dhaqdhaqaaqa dhagaxan iyo qaabka uu u shaqeynayo isla markaana aad ka daalacan doonto. saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan oo aan uga hadlaynay dhagax samada ka soo socda cabsina ku abuuray dunida inteeda badan gaar ahaan reer galbeedka oo runtii arrintaas aad ugu dhuundaloolay isla markaana aad uga walwalsan dhagaxan.
haddii aad ku cusub tahay janaalkan waxaan kaa codsanaynaa si sharaf leh inaad subscribe saartid, like na aad ku qabatid, isla markaana aad saaxiibadaada la sii wadaagtid. waxaan sidoo kale rabaa inaan idin xasuusiyo halkan inaan soo gelino barnaamijyo iyo macluumaad fara badan kuwaasi oo la xiriira arrimo fara badan oo aqoon maadi iyo mid diiniyaba aad ka kororsan doontid. waxaan sidoo kale kaa codsanaynaa inaad subscribe saartid janaalkan oo aad la socotid muuqaalada aanu maalinlaha usoo gelino kuwaas oo khuseeya ama ku saabsan waxyaabo muhiim ah, isla markaana aan u aragno inay muhiim u yihiin dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa saaxiibayaal. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.